السلام الله عليكم waxaan filayaa inaad caafimaad qabtiin maantadani waxaynu bixin doonaa muuqaal gaar ah muuqaalka maanta aynu baahin doono ama halkani aynu ka gudbin doono waxa uu noqon doonaa case ama xaalad inta badan ba yar in la arko inta badan waxa lagu arkaa bulshooyinka marka loo qaybiyo rag iyo dumar waxa inta badan ba lagu arkaa dumarka xaaladaasina waxa inta badan ba soo muuqata xilliga gabadha ay ku jirto caadada xaaladaasina waxa loo yaqaanaa vicarious menstruation waxaan filayaa inaad aragtay mar badan gabar ku sugan xaaladda tani ama gabar ku sugan xaaladda tani labadaani xaaladood oo ah in sanka ay dhiig ka keento xilliga caadada ama in marka ay caadada qabto ay ka keento indhaha dhiig labadaasi xaaladood maxaa keena haddaba haddii aad danaysid inaad kaga bogotid wax badan oo ku saabsan xogtaasi muuqaalkani ilaa dhamaadkiisa ila gaar ka hor intaynu gudagalin muuqaalka like inoo saar muuqaalka lana wadaag asxaabtaada waxaa laga yaabaa inay ka caawiso ama ay xilligan raadinayaan xog ku saabsan isla mawduucan inaynu ka hadlayno mahadsanidin marka ugu horeyso waxaa muhiim ah inaynu ku hadalno vicarious menstruation waa maxay vicarious menstruation waxaa loo yaqaana waa cyclic bleeding waa wareeg dhiig ah oo ah waa dhiig inta badan ba soo wareega inta badanna dumarka waxa uu ku dhacaa xilliga ay qabaan caadada waxaana uu ku dhacaa xubnaha loo yaqaano extragenital organska ee ka baxsan xubnaha taranka dumarka female reproductive systemka xubnaha ka baxsan ee aanan ku jirin ayuu inta badan ba ku dhacaa xubnaha uu saameeyo horta waa xubnahani loo yaqaano extragenital organska ee ka baxsan female reproductive systemka xubnaha taranka dumarka ee aynu sheegayno inuu ku dhaco dhiigga kani xilliga caadada xubnahaasi maxay yihiin xubnahaasi waxaa ka mid ah indhaha iyo sanka iyo calooshaba saddexdaasi xubnood kaliya kuma eka xubno kalena waa uu sii gaari karaa xubinta inta badan uu ku dhaco disorderkani ayaa waxa ay tahay indhaha marka uu ku dhaco indhahana waxaa loo yaqaanaa ocular vicarious menstruation waxaa marka muhiim ah inaynu ogaano cilada halkay ay ka jirtaa maxaa daraasadoo laga qoray xog badan oo ku saabsan insha Allah ayaynu qaybta kale ugu gudbi doonaa haddaba aynu ogaano cilada halkay ka jirtaa cilada waxay ka jirtaa sida dadka qaar ay sheegeenba lama yaqaano anatomical cause-ka ama waxyaabaha saxda ah ee keenay in cudurkani uu yimaado sidaas darteed cudurkani waxa uu ka tirsan yahay cudurrada loo yaqaano idiopathic diseases ama cudurrada aan la ogeynba waxyaabaha sababay cudurkaasi balse daraasadaha qaar ayaa sheegay in cilada ay ka taagan tahay isbedelada ku yimaado dheecaamada jirka qaasatan dheecaamadaas oo inta badan ba isbedelaa xilliga gabadha ay qabto ama ay ku dhacdoba caadada hormoonadaas oo ay ka mid yihiin hormoonka loo yaqaano estrogen iyo progesterone kuwaasoo door muhiim ah ka ciyaara marka xubnahani loo yaqaano extragenital organska vascular permeability-gooda gudbinta ay gudbiyaan dhiigga xididadooda ay ka dhigto inay noqdaan kubo hyperemia ah hyperemia oo loo jeedo in dhiig badan uu meesha ka yimaado kadibna ay dhacdo secondary bleeding oo ku imaan doonto marka secondary bleeding kaasi oo ku imaan doono marka dhiiggaasi labaad ay ku imaan doono marka inuu dhacdo waxay ku imaan doontaa xubnihii loo yaqaan extragenital organska ayna ka soo hadalnay hadday tahay isha ama hadday tahay sanka ay ku dhacdo marka in ay develop gareeyaan nudayaashooda dhiig badan inay soo daayaan taasoo marka keenaysa marka in cudurkani uu develop garoobo waxaan filayaa marka waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababtani ka dambeeyo inaan si fiican isla fahanay haddaba marka maxaa lagu dabiibi karaa gabadha ama qofka lagu arko xaaladaasi ee dumarka ah waxaa lagu dabiibi karaa ama inta badan ba lagu daaweyn karaa in la siiyo kaniini contraceptive pill ah ka kooban labadani hormoon aynu ka soo hadalnay estrogen iyo progesterone taasoo marka dejin doona xaaladda kana dhigi doona sidii caadiga ahayd case lamid ah case-kani ayaa inta badan ba adduun weynaha lagu arkaa qaasatan case waxaa jiray dalka India lagu arkay sanadda markay ahayd 2010 kaasoo ahaa gabar da'deedu ay jirtay 17 sano taasoo lagu arkay marka mid ka mid ah waxaynu hadda ka sheegaynay ama qaybaha aynu hadda kaga hadlaynay vascular aynu kaga hadlaynay vicarious menstruation-ka qaasatan
ocular vicarious menstruation ayaa lagu arkayay. Sababtoo gabadhaasi waxay gabadhaasi qabtay in indhaheeda ay ka soo deynaysay ama indhaheeda inta badan ay ka soo baxayeen ilmo dhiig ah, taasoo loo yaqaano marka aynu u dhigno medical terminology ahaan inay tahay hemolacria. isla sida aynu sheegnay waxaa lagu daaweeyay gabadhaasi marka la baaray kadib oo baaritaano badan la marsiyay ENT iyo qolo ophthalmologist ah loo geeyay ku takhasusay indhaha iyo cunaha loo geeyay kadib dhammaan baaritaanadii waxa ay soo saareen in aysan jirinba wax cilad ah ay gabadhaasi ay qabto. kadib waxaa la ogaaday inay qabto marka xaalad aad u yar in lagu arkana dumarka boqolkiiba hal ama kunkii qof dumar ah ee soo booqata gynecological hospitaliska lagu arko hal ka mid ah, taasoo marka ay u dhigan tahay marka in gabadhaasi markaasiba lagu diagnose gareeyay in laga helay cudurka kan aynu sheegayno oo ah vicarious menstruation, khaasatan qaybta ah ocular vicarious menstruation. kadibna waxaa la siiyey daaweynta hadda aynu ku dabiibnay ee ahayd kaniini contraceptive pill ah ka kooban estrogen iyo progesterone. waxaan filayaa in xaaladda tani mugdi badan ee idinkaga jiray aynu ku baahinay halkani, khaasatan waxaan filayaa dadka inta badanba fieldiska ka shaqeeya ee goobaha caafimaadka inay anfici doonto casharka kani khaaska ah in maanta ugu soo talgalnay inaynu idinkaga faa'iideyno. haddii muuqaalkani ku anfacay ha iloobin inaad subscribe inoo saarto channelka si muuqaalada kale ee ku soo gaari doono ee la xiriira caafimaadka aad ugu faa'iidi doontaan insha Allah. waxaan halkan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena khaaska ah. muuqaalkan lamid ah intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamu alaykum.